howlgalku sidiisaba ma ahan meel kastoo tagto iyo tuulo kastoo tagto iyo muxuu ahaa ii sheegay magaalo kastoo tagto inaan ku sugnaanayso joogayso ma aha dabcan meelaha qaarkood oo ciidanka u cayiman ama dawladda Soomaaliyeed ay ugu tala gashay ciidanku marka ay tagaan inay ku nagaadaan loogu tala gal meelaha qaarkoodna waxa loogu tala galaa cadawga argagixisada marka ku sugan in la burburiyo oo lagu naafeeyo awoodooda meeshaas oo kale marka laga baxo de shacabka uma kala saarno intee ciidamadu marka horeba u qorsheysneed inay joogaan inteesa u qorsheysneeday ciidamadu inay iyo nimanka argagixisada oo meesha ku sugan ay burburiyaan ay ka baxaan taas marka waxay keenaysaa de isma waafaqi karaan qorshihii operationiska iyo sida ay ku socdeen iyo dadku dabcan sida ay rabaan qayb kamid ah mararka qaarkood way iswaafaqsanaa weynayaan normally markaad adigu hadda si logic u fikirto aan ka hadalno tusaale ahaan gobolka Hiiraan tusaale aan soo qaadano ma kula tahay in tuulo kasto gobolka Hiiraan ku taal iyo magaalo kasta ciidanku markay argagixisada ka saan ay degi karaan ay joogi karaan maya suurtagal ma degi karaan marka meelaha dabcan dadka mararka qaar ay ka qaylinayaan meelahaas oo kala kamid ah meel ayaa la qorsheeyay in la dego oo waqtigaas la dego meel waxa la qorsheeyay cadawga in lagu burburiyo lagu naafeeyo marka haddana laga baxo laga yaabo meeshaas operation kaloon ahayn in loogu tala galay in la dego laakiin aan degisteedii la gaarin marka ma dhihi karno cadawga oo joogay tuulo hebel ama magaalo hebel haddaanu kaanan degayn maxaan u weerarno wala weerara because waxaan u socono cadawga argagixisada inaan naafayno oo umada ka dul qaadno taas ay keenaysa mararka qaar koor in dadku ay aragtiyo kale ay ka muujiyaan xaaladahaas iyo sidaas oo kale meelaha qaar koor maadaama dadka deegaanku ay si cad u garab istaageen muxuu ahaa ii sheegay la dagaalanka nimanka khawaarijta ah in laga yaabo in loogu tala galay ciidamada deegaanka oo kale ayagana marka ciidanka qaranku waajibka uu ku lahaa iyo waqtiga ay aheeday inuu ku sugnaado marka uu dhameysto oo lagu wareejiyo ciidankii deegaanka oo marka loogu tala galay deegaanka gacan ku hayntiisii inuu asugu u xijisto in ay u suurtageli weyso taa marka laftirkeeda dadku de kama war hayaan ciidanka qaranka ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka kale ee garab siinayay macaawisleydu maxay isla garteen tuulo hebel marka la gelay taas laftirkeeda mararka qaar koor kala arag dugnaana ka imaanaysa ayaan isleeyahay laakiin runtii 99% si kastaba ha noqoto howlgaladii soo bilowday waqtiga aan ku sheegay ilaa maantay waxay ku socdaan sidii loo qorsheeyay oo loogu tala galay guulo aad u weyn waa laga gaaray xaqiiqatan